afayeenka ururku wuxuu difaacay in cabdile la qabto waxay ahayd wax aynu goobjoog ka wadahayn erayadu isticmaalay waxaa ka mid ahayd in dadka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka Soomaalida ay iyagu xaq u leeyihiin inay maamulkooda bedeshaan marka haddii cabdile aynu bedeli karno maxay noogu hayeen madaxdeena war inaga DBB istaraatiijiyad guud aan ka wada qaadano ma jirto laba DB ma jirto DB kilka iyo DB asaa ma jirto DB waa DB Ethiopia waa mid aynu qeexno istaraatiijiyadda aynu ku wajahayn waa midda aan hoggaankeena ka dalbanayno adiga laftirkaagu wariye ahaan in lagu kala garto oo bani aadamku ku kala fahmaan markaad anagana warsanayso jawxa iyo markaad maamulka kilalka warsanayso si oo qeexano cad markii lagu dul socdo eed ma iman lahayn waayo shalayba maanan isku eedaynin iyadoo dhimasho iyo dhaawac bay taalaan ku wada socnay oo heshiis ku ahayd wacan oo wanaagsan dhammaan baad xaafayda sharafta badan sida tooskaan oogala socdo shaahidkiisa dhawaadkiisa barnaamijkeena masraxda siyaasiga martida caawina waa kooxda kaadirka ONLF oo ugu horeeyo Jibril Faseex Maxamed Cabdi sidoo kale Cabdi Faarax asal idaajaabana soo dhawaada dhammaantiin waa dawla mudan هذه دوما سنت faseex maxamed cabdi faarax ay noo joogaan saddexdaasi huud baan ugu horreysiinaynaa huud soo dhawow marka hore waa dhawahay aad baad mahadsan tahay kumaatay adigu huudow anigu waxaan ahay magacaygu waa Huud Sheekh Badri waxaan ku dhashay magaalada Gunagada ee gobolka Jarar haddana waxaan ku noolahay cariga Mareykanka waxaan qabta hadda halkana waxa weeyaan waxaan ahay qof activist ah community activist ah waxaa kale oo nahay saxafi wax ku qora waxyaabaha electronic ah oo online journalist ah aad baad u mahadsan tahay mudane huud dhawaan waxaad soo saarteen warbixintiinaas waxaad ku qorteen joornaal ka soo baxa jariirada Ethiopia waxaana ka mid ahaa hadallo aad xanaf u dhaliyay miyaad ka midaysan tihiin fikirka waxaan umaleeyaa haddaan ku soco su-aashu inay kuugu fiican tahay yaa qoray oo mas-uul ka ahaa iyo wixii ka dambeeya ood kala qaadqaado oo tiraahdo halkaa maxaad ka qabtaan miyaad ku raacsan tihiin iyo halkaa yaa qoray waaye yaa mas-uul ka ahaa oo qoray anigaa qoray okay mudane huud qoraalka waxa aad ku sheegteen in hogaaminta ONLF ay aad ugu dhuun daloolaan kooxihii nabadiidka amase gumaysiga ku hayay guud ahaan Ethiopia gaar ahaan gobolka Soomaali galbeed ee TPLF xogta xageed ka keenteen idaajaha xogtaas waa xog waxa weeye aan qarsoonayn oo public taala akhridayna way wada saarantahay cadeymihii waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan wixii uu gudoomiyaha jabhadu ku hadlayay xilliyadii uu wareysiyada siinayay saxaafadda maxalliga ah ee waddanka dhexdiisa laga leeyahay iyo marar kale oo uu dadka si caadi ah ula hadlayeen waxaad moodaa mowqif caadi ah oo hadda madaxdu ay qaadatay inay tahay inay nimankii mujrimiinta ahaa iyo iyagu ay isku dhinac u dhaqaaqaan idinku had iyo jeer waxaad eedeysaan hoggaanka ONLF waxaanad sheegtaan in uu kilalka eedeeyo maxaa la odhan jiray Abiy Ahmed iyo xisbiga BB-na uu ammaano idinku ma kilalka ayaad afayeen u tihiin xageed ka socotaan idinku ma ONLF baad tihiin mise xubno kilalka u hadlayaati su-aashaas waxay salka ku haysaa jahawareerka ay madaxda jabhadu keenayso oo adigana saamayn kugu yeeshay run ahaantii waxa anagu aanu diidanahay waxa weeyaan mucaarad iyo muxaashid midnaba inaanaan ahayn waxaanu doonaynana waxa weeyaan jabhadu inay amana tiraaha mucaarad baynu noqonnay oon safkaa gallo ama ayna tiraaha muxaafid baynu noqonnay safkaasayaan ku jirraay sidaa u ogaada laakiin bari iyo galbeed u kala foofka waxa jahawareerka keenay taa weeyaan waxa qoraalkanaga ku cadna waa taas aynu diidanahay aanu naqdinayno jawaabtaadan kaa raba okay anagu waxaanu nahay xubno jabhadeed waxaanu nahay xubno urur waxa aanu saluuganahay iyo waxa aanu diidanahay ama aanu siyaasadda ururka ku dhaliilayno ONLF ama aanu ku dhaliilayno hogaaminta ururka waxa weeye lugna bari dhiga lugna galbeed dhiga in la jahawareeriyo xubnihii ururka iyo in la jahawareeriyo taageerayaashii ururka dadkuna kala garan waayaan in ururku yahay urur muxaafida iyo inuu yahay urur mucaarada xisbigan la yiraahdo BB waa xisbi ka talada haya waana xisbiga ONLF mucaaradka ku tahay in xisbiga ONLF oo xisbi mucaarada ah uu qayb xisbigii BB ah soo dhaweysto oo uu ka dhigo inay yihiin dad lala shaqayn karo oo wanaag falayaal ah qayb kalena uu ka dhigo inay yihiin waxaan u arkaa inay siyaasadda ururka waxaan u aragnaa inay siyaasadda ururka dhaawac ku tahay ayna u qalmin
mabaadiida iyo sharafta ururku uu leeyahay iyo waxay dadku ka filayeenba marka jahwareerka ururku hogaamintiisu ay xubnaheeda ku samaynaysa iyo shacabweynahana ay ka mid tahay maxamed cabdi su-aasha jawaabteedan kaa raba ها ورياد aad baad u maasan tahay wariidaaja waa su'aal fiican waana midda jahwareerka faraha badan keentay mudan in dadku ay fahmaan arrinkan ah idinku ma ii sheegeen BBB qaybteedii buuraleydaad amaanaysaan ood garab u tihiin qaybtii kililkana waad ka soo horjeedaan waa midda annaguba aan ku wareersanay haddaanu nahay xubnihii ururka oo ah waxaan ilaa hadda qeexnayn istiraatiijiyadii ururka ilaa hadda waxa kaliya isbedel lagu sameeyay haddaad fiirso xeerkii iyo nidaamkii ururka waa kaliya meeshii qoriga ahayd oo loo bedelo qalin laakiin lama qeexin istiraatiijiyadii ururka marka waa midda aan leenahay war istiraatiijiyada iyo geedi socodka ururka hal la qeexo hadiise aynu magaranaysaa aynu dhahno buuraleydiina waynu raali gelin tii naga mudnayd inaynu magaranaysaa waa curdan waa xukuumadii meesha ka jirtay in magaranaysaa meelaha ay ka liidato tooska lagu ifiyo waxaad moodaa inaan garab marnay tusaale waxaa kugu filan markii Addis Ababa hadda la joogay waad ogeydeen in magaranaysaa gudoomiyuhu uu go'aan rasmi ah ku qaadan waayay deskigii la wada fadhiyay ayada oo marka ay taa ku tusaysay raali gelinayay BBB-dii meesha fadhiday laakiin markii deskiga la soo baxay go'aan marka muhiimaddu waxa weeyaan war anaga BBB istiraatiijiyad guud aan ka wada qaadano ma jirto laba BB ma jirto BB kilka iyo BB arsa ma jirto BB waa BB Ethiopia waa mid aynu qeexno istiraatiijiyada aynu ku wajahayn waa midda aan hoggaankeena ka dalbanayno ku celcelinayna ilaa hadda taaganahay weeyaan istiraatiijiyad laga midaysan yahay aynu samaysano waad maasan walaalkay cabdi faarax ku soco aad iyo aad baad maasan tahay asad su-aasha waxaan malaynayaa waxay ahayd hogaaminta ururka waxaad ku eedeynaysaan in ay kilalkana wax ka sheegayso ama ay eedeynayso dowladda Itoobiya aysan waxba ka sheegin idinku ma afayeen baad u tihiin deegaanka Soomaalida sidaas ahayd baan jeclahay annaga waxaan qabaa ma jirto aragti odhanaysa inaanu eedayno hogaamintii ururka waxaan jirin aan ku eedayno sababta keenaysaa waxay tahay ururku wuxuu lahaa hadaf iyo ujeedo waa in la kala gartaa waxa aan nahay oo ah inaan ONLF ahayn ONLFna mabda iyo ujeedo yay lahayd tii oo qeexanoo cad markii lagu dul socdo eed ma iman lahayn waayo shalayba maanan isku eedaynin iyadoo dhimasho iyo dhaawac bay taallaanu ku wada socnay oo heshiis ku ahayn waxa marka maanta keenaya hogaaminta ururka makhraati ka tahay dadkii aanu isku dunta ahayn isku waxa ahayn na aanu ku dheganaano kuwii aanu ishaynay aynu dagaalamayno ee cadaawaddu naga dhexaysay aanu gumaysanayeyna aanu ammaan iyo raaligelin haddaad u maadsan tahay waqtigoo kooban awgeed huud baan dib ugu noqonayaa mudane huud qoraalka waxaa ku jiray in hogaaminta ONLF ay difaacayaan dambiilayaashii dadka xasuuqay iyo cabdiiley deegaanka Soomaalidana hore ayaanu hadalkaasi uga haynay wax cadayma abad haysan soo lama oran karo hadalkii deegaanka un baad idinkuna sii faafinaysaan idaaja waad mahadsan tahay waxa fiican adiga laftirkaagu wariye ahaan in lagu kala garto oo bani aadamku ku kala fahmaan markaad anagana warsanayso jawxa iyo markaad maamulka kilalka warsanayso in adiga laftirkaaga sidii qoladan jawxada ee ku dhaganahay aan ku garan weyna ciidaad warsanayso oo dadku ku fahmi waayaan mushkilad bay noqonaysaa su'aashaadan ah waxay u doodayaan nimankii dambiilayaasha ahaa caddayn ma u haysaan caddayn waan u haynaa qoraalka meelo badan bay caddayntaas kaga xusan tahay haddii laakiin haddaba kuu soo qaado waraysigii afhayeenka jabadda uu bixiyey baad weyd uu dadka ku lahaa difaaca cabdi ilay markii la qabanayay maalintii mabda' jawxa ma ahayn wax laysku ogaana ma ahayn waraysyadii dambe ee guddoomiye cabdiraxmaan sheekh mahdi uu bixiyey baad garanaysaa oo bishii 8aad sanadkii hore 26deedii waqti ku beegnayd jariiradan caanka ah ee Addis Standard uu siinayay haddii aad akhrido waxa magaca haddii lagaa qariyo qofkaa la warsaday oo wuxuu yidhi keliya lagu tuso waxaad u malaynaysaa inuu yahay looyar khabiir ah oo u doodaya cabdi ilay inuu qoray
waraysiga uu bixiyey meelaha cajiibka ah ee qoraalkanagana hadda ku xusan waxaa ka mid ah inuu yidhi xidhiga la xidhay munaafiqnimaa ku jirta maa kuwii kale lasoo xidhay ee tigreeg ahaa maxaa isaga keligii loo xidhayaa iyadoo marka aad garanayso inuu habka uu looyarku u difaaci lahaa uun inay tahay kan yaan la xidhina kuwii kale hala keeno meeshay dooddu ka noqon lahayd war kan waa sax waad xidheen waa hagaag kuwii kale doono soo qabta in la yidhaahda ay ahayd meel kale waxaa ka mid ah oo caadi looga dhigayaba doorkii uu ku dhibaatadii waddanka ka dhacday ayna waxbaba ahayn oo la caadi garaynayo oo la leeyahay waa wuxuu ahaa wax yaroon macno lahayn wuxuu isagu meesha ka ahaayey inagoo ogeyn cid kaleba inay nala dagaalamin waqtigii dambe ee isagu uu xoogaystay uu meesha yimid ee ciidamadii faraha badan ee waxaasoo dhan la siiyey marka qoraalka 6 bog ah waaba wada caddaynba siduu u dhan yahayba walaal waad mahadsantahay aad baad mahadsan tahay fasax ku soco su-aasha aan saaxiibkaa weydiiyey jawaabteeda aad baad u mahadsan tahay wariyeyda ajaa waa su-aal runtii muhiim ah dadkuna ay aad isu weydiinayaan dadka annagana dhaliilana laga yaaba inay ay aaminsan yihiin inaanu su-aashan annagu aanu alifayno sida uu sheegay huud horta qoraalka articalka way ku xusnayd inta badan cadaymihii sababtaasi haddii aanu wax yar kaga noqdo cabdi ilay iyo hogaaminta ururka qayb ka mid ah waxay ku kulmeen dubai si ururkuuna isku waafaqsanayn oo isku raacsanayn markii ugu horreysay mar labaad cabdi ilay markii dowladda federaalku ka qaaday tallaabada military afhayeenka ururku wuxuu difaacay in cabdi ilay la qabto xaqiiq ahaan waynu wada dhegaysanaynay waxay ahayd wax aynu goobjoog ka wada ahayn inta aan ka xasuusto uu ka hadlay 2 idaacadood oo kala ah sida iyo VOA-da erayadoo isticmaalay waxaa ka mid ahayd in dadka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka Soomaalidu ay iyagu xaq u leeyihiin in maamulkooda bedeshaan marka haddaynu cabdi ilay aynu bedeli karro maxay noogu hayeen madaxdeenu 10 sano taas noqonaysa waxaa ka mid ahayd inuu yiri afhayeenku booliskii localka ahaa iyo dadkii shacabka ahaa ayaa isdifaacaya marka waxaa ka mid ahayd in gudoomiyaha urur waraysigii uu siiyey Addis Tandi uu sida uu saaxiibkay sheegay waxaa ka mid ahayd in markii gudaha la tegay xubin ka mid ah xubnihii jabhadda oo meel fagaara qeexaya cabdi ilay dhibaatadii dadka u geystay in qayb waxaa ka mid ahayd in afhayeenka ururku waraysi uu dhowaan bixiyey uu ku sheegay in dagaalkii ka dhacay ogaadeen uu ahaa dagaal qabali ah oo ah dagaal sokeeyay marka waxay intaasoo dhan ku tusaysaa sida iyaga la duunayo in loo khafiifiyo dembigii ay lahaayeen iyo sida looga dhigo wax aad u taag daran oo aad u yar duurkii ay ku lahaayeen aad u maasanta cabdi faarax ku soo saaxiibada wax badan keema duwani aragtida waan ka midaysannahay caddaymaha la hayo waxyaalaha ka midka ah waxay tahay waxaa dhacaysay in cabdi ilay iyo hogaaminta ururku ku kulmeen Nairobi kuna wadahadal Ethiopia lagu tilmaamayay ONLF si uusan ururku xataa isugu waafaqsanayn kadibna uu yahay wadahadalkii iyo heshiiska hadda dadka ay ku wareersan yihiin la garan la'yahay ee ku soo dhamaaday oo aad moodo in la leeyahay Tigray baynu la dagaalamaynay ciddii la heshiiyay xilliga ay Tigray ahayd saraakiil Tigray iyo cabdi ilay ayagiina aysan jirin ilaa hadda wax meel lagu sheego saxiixiisii u dambeeyeen ay Mustafa iyo maxaa dhihi jiray wasiirka hadda iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia ay goobjoog ka ahaayeen oo intaa ku dhamaaday intaana ku eg taa markii laga tago waxaad ogeydeen oo dhacaysay oo maqraati ka wada ahayn afhayeenka ururku isagoo BBC-da la hadlay inuu yidhi waxaa la yaab leh iyadoon horay la yaabkii usoo dhammaysanay waad og tihiin wax ka la yaab badan inaysan jirin mayd bini aadam oo gaari lagu daba xidho la jiido mayd bini aadam oo laysku sawiro cagta afka laga saaro wax ka la yaab badan oo jiro adduunka soo mari lahaa anugu ayaa waxaad maqlayseen BBC-da iyo VOA-daba inuu afhayeenka ururku ka lahaa waxaa la yaaba in lagu duulay dowladdii kilalka ka dhisnayd deegaanka Soomaalida ka dhisnayd oo aanu markaan u arkay wax la yaab kale soo karaba inuusan jirin oo inoo dhim markaanu ka hadlayno deegaanka dadka degan iyo dadkeena xorriyadda u dhaqdhaqaaqay saas darteed caddaymaha ayay ka mid noqonaysaa inay tahay difaac iyo isku ogaansho inay jiri karaan ka dhaxeeya ama iman karayaba hogaaminta ururka qayb ka mida iyo cabdi ilay
ها waxaynu ognahay deegaankeena tacadiyadii ka dhacay runtii aynan jirin adduunyada meel ay ka dhaceen hadday jirtan ay aad u yar tahay ciddii tacadigan loo geystay si gudka loo geystay haddana waxaa ugu badnayd waa dadkii ururkan ururkan ay kasoo jeedeen oo dadkii kiisaskan geystay ee dembiyadan geystay ay dacwad ku furaan oo maxkamad caalami ay la fulaan ama maxkamad heer deegaan la fulaan ama tii federaalka ay la fulaan waxay ahayd in ma garanaysaa aynu hoggaankeena ka maqalay waa inaan iscafino iyo iscafis oo lagu baaqay ma waxaa waxaafini hooyada 8 wiilay dhashay la dilay ma waxaa waxaafini odayga reerkiisii dhanaa la baabiyey ma waxaa waxaafini dad dhan oo la xasuuqay oo laga yaabo inay hal ama laba qof ka soo joogaan ma dadkaas baa waxaafin mise hoggaanka oo nalif baa waxaafini marka muhiimadda oo ah in aynu toosha ku ifino waxa weeye horta bal aan ka jawaabna cafiska yaa bixin kara taasaa muhiima in laga jawaabo oo la qaxo cafiska ma bixin karto hoggaanka ururku ma bixin karo waxaa bixin kara dadkii dulmiga loo geystay so waxay hoggaanku ay ka gaabiyeen in ma garanaysaa ay toosha ku ifiyaan ninka shalayto ahaa qaadi boolis ah ee maanta xukuumadda Mustafa sii dalacay meeshii uu joogay ka sii dalacay in yiraahdo markaan leenahay macluumaadkeena yaa isku qasan bay ka mid tahay thank you aad baad mahadsan tahay huud baan ku soo noqonayaa mudane huud dacwooyinka xiriirada Ethiopia kamida soo ma noqonayso nooc kamida jaajuusnimadii hore inoo soo martay maxaa kalifay inaad journalka ku soo qortaan okay horta ereyga jaajuus aflagaadadiisa markii laga yimaado uu yahayba cidnaba in ruux ah mooye ruux kale in lagu yiraahdo ayna ahayn haddana macnaheedu waxa weeyaan ruux laba dad oo colaadi ka dhaxayso col ah inaad qolo xog ka qaadad qolada kale u geyso wax maanta Ethiopia ma la colba ma waxba kala qarsoon sawt kuwan ma aha la amaanayo xitaa markii uu meesha baalaskiisii ra'iisul wasaaruhu uu dayac tiray loo hambalyeynay madaxdii jabada oo hambalyeynay leeyihiin oo kursi qurux badan soo iibsaday halkaas ay ka gaadheen wax kasta oo sameeyaba inay u sameeyaan oo ay marka kuwaas cidi wuxuu jaajuusi mayso inta waxa ka badan oo kale xafiiska wuxuu ka furan yahay ugu weyn Addis Ababa haddii Ethiopia jaajuus u baahan tahay xafiiskaas ka shaqaysanaysa network la isticmaalaya waa kii Ethiopia telefoonada la isticmaalaya waa kuwa Ethiopia baabuurta la isticmaalaya hawada dhan ayada control oo iska leh marka annaguna dad col ahoon u kala jaajuusnay meesha maba joogaan shaqa jaajuusnimana loogama baahno nimanku iyaga meeshii farfadhiyaba oo ay tuubooyin ku wada xareysan yihiin wixii war ay looga baahdo waa laga soo miiranaya waqtiga loo baahdo waan fahmay halka laakiin qoraalka waxa ku jira in jilibka kamida beelaha Soomaalidu ay minjaxaabinayaan nabadgelyada Ethiopia waa ay jilibka aad u jeedeen leedin waxbu minjaxaabinaya su'aashaas meel kale aad ka keentay waa khaladkii Google-ka wixii lagu soo turjumay oo adigana ku soo gaaray weeyaan marka su'aal quman oo qoraalka ku saabsan inay ahaato iyo su'aal qoraalkii ka baxsan oo logiga inay ahaato laga jawaabi karo labada wax dhexeeya ma jirto yaan ku leeyahay meel ay ku qoran tahay oo qoraalka ah hadda anagu aanu ka doodayna ee meesha yimid ah qabiil yaa dawladda Ethiopia minjaxaabinaya iyo qabiil baa nabad lid ku ah iyo qabiil baa qabiil lid ku ah midnaba meesha kuma jirto laakiin waa shay uun dee awooga la cadaabta isu wada bedelaysa intii Google-ka la gashado ee marka dambana la keenayay qoraalkaaga inaana ku jirin wax qabiil oo aad sheegtay isla markaana Google-ka lagu soo turjubay maxaa cadaymo oo haysan mise kala soo turjubeen bay u dhigan tahay jawaabtaaduna kaagan hadda adigu aad weydiinaysa meel laba kuma aana arag Google-ka xitaa kuma aana arkin laakiin waxaan arkay farsamo guud oo dhacaysa isbuucan oo ah maqaaladii Ingiriiska ahayd oo intee la qaaday oo Google-ka la geliyay lagu soo turjumay oo af Spanish ku jiro oo af Portuguese ku jiro oo afaf kale oo aan garanaynin ay ku jiraan oo boqol wax isu bedelay oo ciyaalkii intay soo qaadeen meel la dhigayo oo sidan uu yiri la leeyahay marka kaagana mar hadda tiri qoraalkiiba ku jiraa waxaan baatay oo farshinadii noocaas ahaa oo iska hubsanan inaad soo qaaday qoraalkaygu wuxuu ku jiraa mareeg caalami ah sidii uu maalintii u qoraan buuna ilaa hadda u qoran yahay cidii u baahata wax qoraalka ku saabsan inay wax iga weydiiso beri dambe iyo goortay doontaan noqotay dib baad ugu noqonaysaa bishan 10keedii baa maqaalada la daabacay wax edidaho lagu sameeyay ma jiro wax aniga controlkayga ka baxsan weeyaan maanta waxaan wax ka bedeli kara ma aha shariirad caalami ah baa qortay dad xitaa think tanks oo experts ku sameynaya hadda baa research kale ka dhex sameynaya wixii aanu meesha ka idhi
marka qoraalkaas ha lagu noqdo hana laga dhexraadiyo su'aashaadan hadda adigu aad meesha keentay inay ku jirto iyo in kale anigu kaasaan caddayn u haystaa inayna ka mid ahayn aad baad umahadsan tahay mudane waxaan ku soo noqonayaa guud ahaan dhinaca fasax baan ku soo noqonayaa mudane fasax dhowaan waxaad soo saarteen war-saxaafadeed iyo bayaana ayaad soo saartaan hore waxaad uga koobnaydeen 80 xubnood waxaad soo saarteen bayaan idinkuma waxaad tihiin xubno ka mida ONLF oo wax diidan mise waxaad tihiin garab kale oo ONLF ka dhinac dilaacay oo awood buuxda u leh in ay wax dhaliilaan waxna soo bandhigaan idaaja waad mahadsan tahay annagu marka koowaad waxaanu nahay xubno urur waxaanu nahay xubno jooxa ah waxaanu aaminsanahay mabaadi'da ONLF waxaanu u soo dagaalanay oo nu waqtiganagii ugu badnaa soo gelinay qadiyadani sidii mabaadi'da laga leeyahay iyo ahdaafta laga leeyahay ay midho dhasho waxa aanu diidanahay iyo waxa aanu saluugsanahay waa khalad ku jira maamulka ONLF iyo siyaasaddiisa waxa aanu doonaynay waa ONLF oo saxanta waa ONLF oo hagaagta waa ONLF oo wixii laga filayay wixii laga doonayay buuxisa ma nihin garab kale ma nihin xisbi kale war saxaafadeedka aanu soo saaray waa mid aanu ku ifinayno oonu ku bildhaaminayno oonu doonayno inuu ka weeciyo ONLF qaladaadka siyaasadeed iyo qaladaadka maamul ee sida joogtada ugu socda ee sababi kara in ururkani uu sumcadiisii iyo karaamadiisii labadaba uu waayo guuldaraystana okay aad baad umahadsan tahay mudane maxamed cabdi unbaad idinkuna kasoo dhinac muuqateen ee horena waxba umaydaan diidanayn khilaafka unbaad qayb ka tihiin baa la odhan karaa marka haddii aydaan xalka qayb ka noqon karin inaad iska aamustaan soo ma habboonayn aad baad u mahadsan tahay weriye waa su-aal fiican waxaa jirta annagu waxaanu aragnaa dhaliilaha jira iyo in mabaadi'dii ururka la baalmaray middaas baan annagu yaan u soo shaabaxnay oon u muujinay ii sheegeen in aan magaranaysaa ka hadalno sixitaankii ururkii xubnahan aad sheegaysid iyo annagu dareen baan wadaagnaa lahaanshaan wadaagnaa sida ayagu ay u dareemeen in uu wax khaldan yahay baan annaguna u dareennay waana ka simannahay arrinka ah in ururka la saxo oo mabaadi'dii ururka la qeexo oo ii sheegeen jahawareerka jira ii sheegeen laga baxo marka aad leedahay sooma fiicnayn inaad aamustaan waxaan is leenahay dadku inay ogaadaan baa muhiim ah ma ahan markii koowaad ay khilaafkan imanayo khilaafkan ururku waa mid soo jiitamay muddo dheer soo socday jaranjarooyin kala duwan soo maray marka waxaa jiray marxalado marka la fiiriyo xilliga lagu jiray aanan sida maanta aan wax usoo shacbixin aanan usoo shacbixin karin ayadoo markaas waaqicii lagu jiray aynan saamaxaynin laakiin maanta markii aynu isku daynay inaan si hoose u xalino ii sheegeen waxyaabaha jira in ururkii uu si hoose isu hufo ee la naga dhegaysan waayey ayaanu soo shacbaxnay marka xubnahaas golaha dhexe iyo annagu waxaanu ka simannahay dareenka iyo danqashada waxaanu diidanahay jahawareerka ururka dhexdiisa ka jira oo rabno in aynu samaysano wax aynu common ka nahay platform inaan samaysano political platform ama ii sheegeen mabaadi' siyaasadeed oo ma garanaysaa ay duulayna inaan samaysano unbaan rabnaa marka ayagaas iyo annagu ma kala fogin sixitaanka unbaan ka simannahay aad baad umahadsan tahay mudane cabdi faarax xubnihii khilaafku ka dhexeeya ee golaha dhexe maanta waxay bilaabeen shir albaabadu u xidhan yihiin in ay heshiiyaanna waa suurtagal haddii ay heshiiyaan idinku khilaafkiina maad sii wadaysaan mise heshiiskaa ay qaateen baad idinkuna qaadanaysaan waxaan raadinaynaa annagu khilaafba maaha waxaan nahay xubno urur mar walbana waxaan ku qanacsannahay ururka ONLF oo ahaada ururkii ONLF ee la yaqaanay markii la helo ururkii ONLF ee la yaqaanay waxaan nahay ururkii ONLF ee la yaqaanay in la heshiiyo la wada hadlo waxa saxda ah la isla qaato waxa khaladkaana la iska saxo waxaanu doonaynay wey aad baad umahadsan tahay mudane huud mas-uuliyaddan iyo matalaadan yaa idin siiyey yaad matashaan maxaad had iyo jeer bayaanadanaad soo saartaan yaa daaha dabadiisa jooga dadku taasay isweydiinayaan waa hagaag annagu mas-uuliyad waxaana saartay xubnaanu nahay shaqooyin baan soo qabannay kuwo kalena waan haynaa bulshiilkii dhexe ee jabhadda waxaanu ahaynaa hogaamintii dhexe ee waxaanu nahay ururka
caqligii iyo maskaxdii baanu nahay generationkan dambaanu nahay hadda yimid inta badanna idaajada dib ugu laabato waxyaabahan hadda aadka u dhacaya waxa weeyaan dadku xitaa waxay kala garan la'yihiin khilaafkanu siduu ku bilaabmay iyo goortuu bilaabmay iyo waxaasoo dhan baa iskaga wada laaqmaysa iyo hebel ayaa waxaanu ururkiisaba wuxuu ahaa urur mutadawac nina mushahar lama siin jirin nin waliba isagaa intuu la yimaado qorigiisa iyo qaadadiisa buu sida ku halgami jiray uu ku socon jiray tii unbaasuuliyad berigaana saarayd ay u dhinteen ay u baaba'een ee loo aasay tii baanu ilaa hadda ku taaganahay inu shaqadeedii wadnaa muranna kama taagna annagu inaanu wax ku leenahay jabhaddan oonu dhaliili karro oo xaquna siinaya iyo xeerka ururku wax doodahu ka taagan haba yaraatee ma jirto dadka isweydiinayana waa dad aan aqoonin dhaqankii jawxe iyo sida ahayd jawxe waxa weeyaan urur dadweyne lahaa weeye dadweyne isugu yimid oo wada yeeshay xeer baa la dejiyey oo dadka wada controlayo framekaasaa lagu wada jiraa xeerka qofkii ka baxa hadduu xun yahay iyo hadduu madax yahay isku sibuu u celinaya u qabanaya marka mas-uuliyadana saaran midaas weeyaan waad mahadsantahay mudane faseex xalku muxuu noqonayaa aad u mahadsantahay idaajaha xalku wuxuu noqonayaa annagu waxaanu diidanayn oo ay doodannadu ahayd in ururkii ONLF uu khalad ku jiro maamul in khalad siyaasadeed jiro in ku xeer jiro marka waxa annagu aanu doonaynay waa intaasoo hagaagta waa intaasoo saxanta okay maxamed cabdi xalku muxuu noqonayaa walaal xalku wuxuu noqonayaa in gudmiyaha iyo hoggaanka ururku ay wada ka naqaashaan oo isweydiiyaan war muxuu yahay khaladka jira iyo madmadowga jira oo la saxo madmugdiga ururka dhexdiisii soo galay in la qeexo mabaadida ururka in ay qeexnaato inagu ma waxaynu nahay urur mucaarad ah oo xisbi siyaasiya baynu nahay mise xisbi mabaadi ka duwan xisbiyada kale ee jira aaminsan oo ah sida tusaale kale inaynu shacabka gaarsiino ay ka tash inaan gaarsiinayn nahay oo in la ogaado annaga iyo xisbigan kaleete ee maanta ka jiri kara deegaanka maxaan ku kala duwanahay oo lagu kala garan karaa in la qeexo istiraatiijiyadda ururka in la qeexo oo la yiraahdo ahdaafta ururku waa isheegan 1 2 3 ayna noqoto mid haday noqoto xubnihii ururka taageeradii ururka iyo mujtamacii ay u muuqato sifo isheegan uu qofku uu isweydiiyo maxaan ONLF u xelan karaa ama maxaan ONLF u xelan karaa inay cadaato xalku marka waa midaas baan la timaado ma jirayo mugdigan iyo saysigan marka taas in la qeexaan yaan xalku aragnaa mudane cabdi farax xalku muxuu noqonayaa halka wuxuu noqon karayaa aragtidayda iyo sidaan wax u aragno ururka ONLF urur buu ahaa la yaqaan urur siyaasi ah haddana ah urur hubaysan ummaddana wax u ballan qaaday inuu meel gaadhsiiyo ay lagu ballamay xornimo xornimada xeerka ururku wuxuu nusayey in lagu raadiyo waddo kasta oo suurtagal u ah waxaa xal noqonaya oo xalku ku jira Soomaalidu waxay tiraahdaa geeljira geela wuuna wada jirtaa wuuna kala jiraa qadiyadan dadka deegaanka degan ee Soomaaliyeed baa iska leh haddana waa la kala lahaayo waxaa kala lahaa ninkii shalay la dagaalamayay iyo ninkii u dagaalamayay way kala leeyihiin naftiisa iyo waqtigiisa iyo maskaxdiisa iyo maalkiisa ku bixiyo halka waxaa kow ka noqonaya in la kala garto kii la dagaalamayay iyo kii u dagaalamayay xal muxuu noqonayaa Huud Sheekh Fadluddin xalku wuxuu ku cad yahay saaxiibadayna u sheegeen qoraalka gabagabadiisiibana ku cad yahay waxa loo baahan yahay siyaasad shaqayn karta inay la timaado kala day gudihii Itoobiya tagtay nidaam cusub oo Itoobiya hadda ay kula dhaqmi karta inay la timaadaan loo baahan yahay waan ognahay heshiis difaaca oo soo gashay ma jiro awood difaacdo ay haysataan ma jirto siyaasadda adduunkuna waxan xaq baan u leeyahay kuma shaqaysay afar arrimood oo iskhilaafsan waxa inay qaybna tuurto oo duurka ku jira wadadii waa inay noqoto sidaan hadda kuwii dagaalkay weli ku shaqaynaysaa ay ku joogtaa oo in waxba ka bedelin wadamadii xiriirka la lahayd berigii dagaalku socday weli sidii xiriir ula leedahay halis bay halka kaga jirayaan dhinaca kale mucaarad iyo muxaafid mid ay qaateen ilaa hadda ma jirto way ku dhexlaaqan tahay oo marna xaggan ay u boodayaan marna xaggan jahwareer iyo dabeetana waxaa imanaya conflict baa meel kasta ka imanaya waxa kaleeto oo jabhadu ay u baahan tahay siday saaxiibaday sheegeen inay kala hufto dadkii la dagaalamayay iyo dadkii u dagaalamayay dad wax la isku dari kara dadkaasi ma aha cadaalad bay dadkani u baahan yihiin hal iscafiyo dhib ma laha laakiin doodeeda ha furto jabhadu xubnaha dhexdeeda ha ka furto ha la keeno sidaa ha lagu wado
intaa waxaynu ku soo koobaynaa doodna dhex martay xubnaha kaadirka ONLF oo ka biyadiiday siyaasadda iyo habsami socodka ONLF ee waqti xaadirkan iyo hogaaminta ugu sarreysa ONLF oo ay sheegeen in aanay u wadin sidii loo baahnaa hogaaminta siyaasadeed ee ururkaasi ONLF. waa mahadsantihiin meel kasta iyo goob kastoo joogtaan.